munaasabadani waa habeenkii xalay ka dhacday magaalada Boorama ayaa ahayd mid ay hablaha gobolka Awdal ay ku maamuusayeen ciyaaryahanada metelaya xulka gobolka Awdal ee sanadkan ka qayb galay tartanka xiisaha badan ee koobka gobolada Somaliland. munaasabada Casho Sharafeed oo ahayd mid sare loo soo agaasimay waxa goob jooga mas'uuliyiin isku duwa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Awdal, tababarayaasha xulka gobolka Awdal, hablaha gobolka Awdal iyo ciyaaryahanada metelaya xulka gobolka Awdal. ugu horeyna waxa madasha ka hadashay Hinta Cadoosh oo ku hadlaysay afka hablaha gobolka Awdal iyo mas'uuliyiintooda iyo macallimiintooda waxaan leeyahay welcome back ku soo dhawaada gobolkiini kollay ma markii horeysana u kulanay waa markii saddexaad sharaf aad iyo aad u weyn noo tahay inaan mar saddexaad ku soo dhaweyno gobolkiini annaga oo ka wakiila shan hablood oo dhashay gobolka Awdal oo laakiin fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa ayaa nala soo hadlay waxay yiraahdeen waxa rabnaa xulka gobolka Awdal inta Hargeysa joogeen inay suurta geliyaan Casho Sharaf u sameeyno waxaan rabnaa inaan Casho Sharaf taa u sameeyno waxaan u sheegnay in ay ku munaasib tahay maalinta ay soo galaan magaalada habeenimada in cashada looga dhigo hablahaas waxaan leenahay innimadii waa u dabqateen kaalintii waa ku soo baxeen habar yaro aad baa u maadsantihiin kun qaybkiin ayaa daantiin baan leenahay oo gobolada kala ku nool waxa waajiba hablaha gobolka u dhashay ee dhulka kala ku nool inay sidii naas oo kale ku daydaan kollay munaasabadu caawa Casho Sharaf taan baa hay soo dhaweynta waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweyntii aad u jeerada xulka gobolka Awdal maanta loo sameeyay wallahi aad baan ugu farxay. Gudoomiyaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Awdal Mudane Xasan Siciid Guuleed ayaa ka dareen celiyay Casho Sharafeedka ay ku maamuuseen hablaha gobolka Awdal. anigu ma oranayo shan gabdhood ee waxaan oranayaa shanta star ee ka yimid Hargeysa ee u dhashay gobolka Awdal aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa walaalahooga ay nafsadu u dhaqaaqday ee ay door bideen in ay walaalahood Casho Sharaf u sameeyaan aad iyo aad baan aniga oo ka wakiila ama isduwii gobolka Awdal idin leeyahay hambalyo waan idinka gudoonay run ahaantii gabdhahaasi dareenkoodu wuxuu siiyey ama ha guulaystaan ama ha guuldarraystaan walaalihiin maxaad la garab istaagtaan waxa ayna nafsadoodu door biday in ay Casho Sharaf aad ku kulantaan oo isku barataan ay idin sameeyaan waanan ka gudoonay runtii gabdhaha kale ee gobolkan Awdal degan ee ay u horeyso Hinda ay ku xigto Nimco iyagana waxaan leeyahay abaabulka aad ku jirtaan iyo soo dhaweynta aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa bulshooyinka gobolka Awdal ee maanta markuu gurigooga ku soo hooyanayeen dhalinyartii halkan ka boqoshay ee ka hawlgalaysay ama ka qayb galaysay koobkii gobolada Somaliland iyagana waxaan leenahay soo dhaweyntii waan idinka gudoonay. ugu dambeyn hablaha gobolka Awdal ayaa goobta ku jaray keega ugu tala galeen ciyaaryahanada metelaya xulka gobolka Awdal.